wallahu a'lam. sheekh maxamed waxaan jeclahay su-aashan inaan kaga faa'iidaysano matalan haddii aad joogto meel aan ciidiba markaa ka dhoweyn gidaarada oo kale ma lagu gabagabaysan karaa? bismillahi raxmaani raxiim. aimadu runtii waa masala ay markaa ilaa 6 masale isku khilaafaan oo ku tacalluqa baabka tayamumka. waxaa lagu gabagabaysanayaa ilaahay waxa uu fatayammamu sa'iidan tayyiban sa'iid tayyiba ku gabagabaysta buu ilaahay. marka waxay isweydiiyeen ma huwa sa'iid سعيد كان قرآن كوشيء واضح حق اللغة على الله نقطة لأن سعيدكم عيدنا والله إلى هذا وكذلك كل ما سعد على الأرض قلك وحي كسر رأينا والله إلى لغة دي لبضا والله جهلا حق حديث كان الله نقطة مركع الإله يبالي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وأن كان كوسو دجني جاءتك وعر عطيت شرحي سنة محمد مركع حديث كل كيلو نقطة والله عرك iyagu nabigu waciid ku gabagabaysay sida kanaynu iminka sheegayna oo kale waxa kaloo si sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam uga soo aroortay inuu gidaar ku dhuftay labada gacmood oo taa ku gabagabaystayna way soo aroortay sidaa darteed baa culimada islaamka labada qowlba ay leeyihiin haddaba hadduu qofku ciid waayey qowlkaa sheegaya in gidaar lagu gabagabaysto buu iska qaadanaya ilaa nabiga waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam. ilaahay ka jeclaysiiyo sheekh maxamed gabadha su'aalaheeda haddaynu soo noqon